waxaan idiin soo gudbi doonaa qiso yar oo cajiib ah. Waxa ayna taaban doontaa qisadan meelo fara badan. Sidoo kale qisadan waxaan ka baran doonaa ballanku inuu yahay wax fiican. Hadda koor habeen qabow daran jira ayaa nin hantiila ah waxa uu soo baxay banaanka. Sidii markii uu banaanka u soo baxay waxa uu arkay nin saaxiibkiisa ahaa oo masaakiin ah. Markaas ayuu su'aal weydiiyay, markaas ayuuna wuxuu ku dhahay qabowgan daran jiro jaakadna kama wadatid ee maxaa dareemaysaa. Markaas ayuu ninkii masaakiinka ahaa waxa uu dhahay qabowgan waa la qabsaday, wax oo dhibaato ah uu ii leeyahay ma jirto. Markaas ayuu dhahay ma haysataa jaakad qabowgan iskaga difaacdid. Markaas ayuu dhahay ma haysto. Ninkii hantiila ahaa ayaa dhahay ninkii masaakiinka ahaa isu gurigeyga ayaan galayaa, aniga ayaana jaakad ku keeni doono. Ninkii hantiila ahaa gurigii ayuu galay. Gurigii markii uu galay kadibna sheeko iyo waxa uu galay qoyskiisii inuu wareysto. Ninkii masaakiinka ahaa qabowgii ayuu taagan yahay, banaanka ayuuna iska joogaa, wuxuuna sugayaa ballankii laga ballan qaaday ee ninkii hantiila ahaa uu ka ballan qaaday. Ninkii hantiila ahaa gurigii markuu aaday sheekadiisii iyo caruurtiisii ayuu farxadda la qaatay. Subaxii ayaana waxa ku soo dhacday in ninkii xala ballankii uu ka qaaday. Subaxii markii uu soo baxay waxa uu raadiyay ninkii masaakiinka ahaa. Durbaba haddii uu raadiyay ninkii masaakiinka ahaa banaanka markuu tagay waxa uu tagay ninkii oo mid ah ama dhintay. Laakiin warqad uu qoray ayaa waxa ku qorneed gacanta ayayna warqadu ku jirtay. Ninkii hantiila ahaa warqadii ayuu arkay. Markaas ayuu dhahay ninkii masaakiinka ahaa warqadii qoraalka ku qornaa ayaa sidan ku bilaabanayay: anigu markii hore waxaan ahay qof aad u adag, qabowga waan iska difaaci jiray, laakiin adigu markaad ii ballan qaaday jaakadda waxaan go'aansaday in aan ballankaada oo aan isku dhiibay. Maxaa yeelay ballanku wuxuu ahaa mid aan islahaa wuu kuu oofi doonaa. Sidaas darteed ayuuna qabowgii ii helay. Wax walba oo dhibaato ahna adiga ballankaada ayay ii soo gaareen. Ninkii markii qoraalkaas uu arkay aad ayuu u naxay ninkii milyaneerka ahaa ama ninkii hantiila ahaa. Dulucda sheekadan iyo qisadan waxaa ka baranaynaa waxay tahay in ballanku uu yahay wax aad u qurux badan. Haddii ballanku aa qaadana uu ka rabo oofin. Sidoo kale adiga waxa qofka uu ballan qaadaysid ayaa waxa laga yaabaa adiga inaysan ku ahayn wax macno ah ama aysan ku lahayn wax macno ah ama faa'iido aysan ku lahayn. Laakiin qofka uu ballan qaadaysid waxa laga yaabaa in faa'iido fara badan uu leedahay, sidoo kalena wax badan booskiisa ugu buuxi karto. Dhammaan saaxiibada ka daawanaya barteeda YouTube-ka Socdaal 24 iyo aaladda TikTok-ga ku leeyahay Socdaal 24 waxa idin leeyahay ballanka wadaadkeena tani inta ku kulmi doono warbixin noocan oo kale ah. Sidaas nabadgelyo.